Assalaamu calaykum dhammaan khayrta waa idin salaamay soo dhawaada tibiska data tibiska ugu caansan data tibs waxaa laga wadaa variable-ka xogta uu keydinayo nooca ay tahay maadaama daatooyinka ay kala duwan yihiin midaan waxaa lahaa integer aa lahaa int tusaalaheeda waa kana marka x equal 10 oo kale variable x waxaa ku keydinaya 10 marka 10kan data tibkiisa waxaa waaye integer maadaama integer waxaa laga wadaa shay aanan ahayn jajab tiro dhan waa marka tiro dhammaystiran waa integer markaas sidoo kale variable-ka noocan marka y equal 10.5 marka tirada waxay noqonaysaa float maadaama ay jajab wax kasta oo tiro jajab ku jiro data tibkii noocaas wuxuu noqonayaa float ayuu noqonayaa stringki ama str loo soo gaabiyo su'aal kale hadda variable-kan z marka hello ayaan ahnay string waxaa loo yaqaanaa calaamadana loo yaqaanaa calaamadan quotationkaas waxaa lahaa waa string alla marka waxaa lagu keediyaa inta badan magacyada waxyaabahaas wax kasta meesha lagu qoro waxay noqonayaan text ayay noqonayaan sidoo kale waxay tahay boolka marka waxaa lahaa waa true and false waa markaas true and false ayuu keediyaa su'aalka hadda waxaa la variable is true run miya waxaa isticmaalna marka inuu run waa ama dhaho waa isticmaalna true ayada meesha qiimaha rabtid ku qori kartid haddaa boolean rabtid booleanka waxaa waaye waa true iyo false aa la isticmaala inta badan marka la jeekimaayo systemyada oo log miya qofkan yes ama false student miya ardaygan yes userka soo galaya nuucuu yahay markaa rabtid inaad jeekin karaysid ayaa halkan ku xadidaysaa marka condition ahaan loo isticmaalaa marka kan waxaa lahaa boolean aa lahaa haddaa rabtid true calaamad ka hadii true small aa qortid wuxuu iska noqonayaa qalad aa imaanaya meesha t small ka dhigno qalad uu noqonaya sababtoo syntaxkeeda waa intaas true capital waa markaas true false oo capital hadee small noqoto wuxuu noqonayaa qalad soo baxaya sababtoo qoraal aa qortay qoraalku wuxuu rabaa markasta aa qorayso in calaamadaas ay gelisid marka functionkan asna waxaa lahaa tape conversion ama waxaa lahaa tape checker aa lahaa functionkan waxaa lagu tijaabiyaa maadaama halkan ay ku qorneen integer iyo waxaas ay ku qorneen qaabka aad ku ogaan karto nuuca uu yahay marka variable-kan daatada uu keedinayo ama functionkan daatada uu keedinayo marka tape conversionkan ama waxaa la tape checkerkan la isticmaalaa tape checkerkan marka ama functionkan wuxuu noo sheegaya marka tells you wuxuu ku sheegayaa what that tape nooca daatada ay tahay ee variable-ka marka variable-ka halka ay soo gelin doonto magaciisa su'aalka hadda x hadda halkan dhex gelino x wuxuu soo qori doonaa integer waaye mid kasta dhex gelina magaciisa ayuu noo sheegi doonaa data tape nooca uu yahay markaas su'aalka hadda tape conditionkiisa waa kana variable any variable kasta magaciisa ayaa geli doontaa kadib wuxuu kuu soo celi doonaa data tapekiisa python data tapes waxaa arkaa marka python data tape conversion marka habka python data tapeka nooca laiskugu bedelo conversion waxaa lahaa integer uu ahaa in float loo bedelo float uu ahaa in integer loo bedelo isku bedelashada in anaga sameyno what is data tape conversion marka data tape conversion maxaa la lahaa data tape conversionka means waxaa loola jeedaa changing waxaa lagu bedelaa value-ga qiimaha from one data tape to another data tape qiimo data tape ah tusaale kale data tape integer ahaa ayaa waxaa u bedelaynaa float aa u bedelaynaa jajab aa u bedelaynaa ama value float ahaa waxaa usoo bedelaynaa integer aa u bedelaynaa habkaas ayaa lamar qaar loo baahda marka system waxaa la sameynayo in data tape-yada la bedelo soo dhow systemka error ugu dhacin tusaale kale qof xog soo xareynayo xogtaas waxaa laga yaabaa inay integer tahay xag kalena float la xisaabinayo si qalad u dhici marka in la sameeyo conversion wax ayaa loo baahanaya markasta maaha marka python marka support wuxuu taageeraa two kind of conversion laba nooc conversion ayuu python ayuu bixiyaa oo support gareeyaa midkooda waxaa lahaa implicit ayaa lahaa implicit conversion aa lahaa habkan implicit conversion marka pythonka waxaa lahay does it automatically asaga wuxuu sameynayaa automatic uma baahnaba in anaga aa u sheegno habkaas tusaale ahaan oo kale laba shay aa isku daraysaa laba qiimo x iyo y laba variable qiimahooda aa xaarta inaad isku darta ama aa kala qaybisay kadib waxaa soo bixi doona result nooc kale hadduu mid kamid uu yahay integer halka mid kalena uu yahay float ama aa u taqaan decimal uu yahay haddii la isku daro kolley mid unbaa soo hari doono oo
laba variable lama soo kala daawici doono marka habkaas waxaa loo yaqaanaa implicit pythonka ayaa si automatiga u bedeli doona waana shaqo ku leeyahay habka kale waxaa la explicit conversionka adiga ayaa si manual u bedelaysid adigoo isticmaalaya functionka loo yaqaano type conversion adoo isticmaalaya habka waa fiirin hadaba implicit typeka fiirina implicit typeka waxaa dhahnay meesha waxaa haysanaa x equal 10 ayaan dhahnay waa integer waa saadaad usoo barnay y equal 2.5 waa float waa labadaa marka haddii laisku daro maxaa soo baxaya marka oo variable resultigan xarnaa inuu soo helo labadaana laisku daray in halka lagu soo keediyo marka resultigan haddii aan soo daabacno muxuu keedin karaa isweydiiyaan marka 10 iyo sidoo kale 2.5 waxay noqonaya 10 iyo 2.5 ay noqonay ma integer ay aadi doontaa oo 5 waa la tuuri doonaa mase integerka la tuuri doonaa 5 waa la soo celi doonaa adintay kula saxsan maskaxaan aan wada tijaabi waa tijaabinaa marka kood ahaan koodkana tagaynaa marka koodkan marka waa karaa marka halkan hore usii diyaarinay tape conversional lahaa waa idin soo diri doonaa failka si adinkana ugu practicaysaan tape conversionka means waxaa waa change inuu bedelo value from one data tape to another waa hadda marka waa karaa marka x equal 10 y equal 2.5 marka explicit waxaa sheegnay implicit waxaa sheegnay inuu asaga automatic isku bedelayo markaas habkan implicitka automatic inuu isku bedelayo marka aan rangareyna marka waxaan laba variable aan samaysanay qiimahaas midna jajab waa midna waxa waaye jajab waa midna integer waaye ama float aan dhihi karnaa halkan variable kale waxaa samaysanay oo resultia kadib waxaan resultigan waa inuu soo celiyaa qiimaha x lagu daray qiimaha y oo la isku daray waa inuu keenaa kadib waxaa dhahnay markaas noo soo daawac qiimaha resultiga ku jiro kadib haddana waxaa dhahnay no checking variable saa u ogaan wuxuu keediyo nooca uu yahay noo soo daawac haddana tape result waa rangareena markaas saa ujeedaa marka hadda waa lasoo saaray resultigii maxaa lasoo saaray 2.5 waxaa lasoo saaray 2.5 ayaa lasoo saaray 2.5 ayaa lasoo saaray haddaa fiir marku noosi functionkan kale oo checking kare maxaa la wada float sababta tahay habka automatic uu dhacay laba waxa waa integer iyo value iyo float waa marka la isku daro markaas labadaas function ama la isku dhufto ama wax la isku union la sameeyo isku tagaan waxaa markasta soo hari doono float marka halkaas marka waxaa maskaxda ku haysanaysaa implicit functionka oo conversionka tapekaas oo Python automatic u sameynaya markasta waxaa soo laaban doono float ayaa soo laaban doona oo integerka meeshaas ku hari doona si maskaxiyan hadaa u fiirsanay haddii la dhihi lahaa kana ah la soo celiyo oo jajabka laga saara meesha dee waxay noqon lahayd qiima in la baabiyo qalad waa marka hadhow xisaab qaldan imaanayso haddii shay laisku lacaga la xareeyo laisku dari lahaa oo la yidhaha bal lacag jajab ha laga tago lacaga meesha lagu weynaya marka saas darteed marka qiimaha marka loo fiiriyo Python ahaan waxaa weyn qiimahan sababta qiimahan wuxuu isku haystaa laba qiimo waa integerkii oo dhinacana iyo dhinacana float two value waa marka floatka weyn markaas nooca daatada marka qiimaha ma la fiirina 10 hadda iyo 2.5 10 weyn laakiin sida caadiga laakiin programmatical marka loo fiiriyo waxaa loo fiirinaa halkan wuxuu isku hayaa integer halkan waxaa yaala float maadaama marka laba value uu hayo oo two index uu yahay waxaa weyn marka floatka weyn markaas markasta kan weyn ayaa loo soo laabanaya halka soo laaban prestige noo sharaxaya Python marka convert wuxuu bedelayaa smaller waxaa mid ka yar labadana yar 10 ka yar 2.5 iyo 10 waxaa yar 10ka sababta waxay tahay waa intaas waxaa one value one digit waa kan waxaa waa two digit waa 2 gaas waa qiime 0.5 kaasna waa qiimo ka marka ha u fiirin marka qiimo ahaan 10 weyn waa ogna taas maskaxda caadiga ku hay waa reality laakiin waxaa loo fiirinayaa labada qaybood ayaa loo kala fiirinaya marka smallerka qiimaha yar ayaa markasta waxaa loo bedelaya marka si ammaana markaas waxaa loo bedelaya ka weyn waxaa laga wadaa ayadoo xog dhumina laga wadaa marka xog sidaysan u dhumin
ayaa waxaa loo bedelay haddii la dhihi lahaa kan ha loo bedelo si toosa 0.5 hawada ka bixi lahaa marka 12 lasoo daabacay marka qiimo dhanaa meesha ka baxaya dee hadhow xisaab qaldan imaanayso marka one is hardcore without data loss marka asagoo wax data ah aanan dhumin ayaa marka habkaas loo marayo marka python ayaa si automatic ah habkaas u marayo waxaana loo yaqaanaa implicit ayaa loo yaqaanaa tape conversion marka luqadda programming ahaan ereyada mar walba soo laaban doonaa implicit waxaa laga wadaa wax automatic u dhacayo explicit waxaa wax manual u dhacayo marka marka waa kana marka qiimihi hadaaye prestation noo soo baxay output-ka waxaa soo baxay 12.5 that type-kan wuxuu noo soo baxay float marka waa qori kartaa ama hadda video keedisid xogtaan qor marka saad u practice integerka markaas was automatically markaas convert waxaa loo bedelay float ayaa loo bedelay tirada integerka markasta hadaa aragtid integer iyo float oo la isku daray markasta waxaa soo bixi doona float that type-kaas saas maskaxda ku hay marka habkan kala baranayna marka habkan explicit maxaa la marka explicit saa sheegnay waa manual annaga gacanteena ku bedelayna waa habka labaad ee python tape conversionska la isku bedela daatada nooceeda waxaa tayna ma qaybtan kale oo explicitka qaybtan hoose ayaa tayna meesha imaanama meesha marka waxaa lahaa explicit tape conversion marka explicit tape conversionska waxaa lahaa hab manual markaas anaga qiimaha si toos ah ugu bedelayna qiimahaas kale ayaa u bedelayna marka integer waa kala marka converted tapekiisa noocu uu yahay integer waaye function kan loo yaqaano saana loo qoraa marka integer function aa lahaa waa integerka ogan tirada dhan waaye float saana loo qoraa floatkii waa kana waa float waa jajab waa string waa boolean saasa loo qoraa functionadan ay leeyihin functionadan isticmaala marka inaan bedelnaa rabno functionskan ayaan bedelaynaa markaas oo shayga bedelayna inta soo geli doonaa kadibna shaygan ayaa loo bedeli doonaa aan fiirina marka practicalki waa kana kow marka waxaan ku hormaraynaa qaybtan x equal waxaan dhahnaa 10 marka y ayaa waxaa bedelaynaa marka x qiimaheeda x waxaan dhahnaa waa 10 waa integer marka y haddaa waxay la micno tahay x integer la noo soo laabay marka qiimaha y waxaa rabnaa qiimaha x oo float loo bedelay marka waxaa leenahay function kala isticmaalaya marka qiimaha x oo float loo bedelay ayaa rabnaa markaas marka x variableki ayaa halkan floatka dhex gelinay marka hadhow halkan waxaa imaanaysa marka 10.0 ayaa imaanaysa marka print waxaa leenahay y kadibna waxaa leenahay print sidoo kale y noo soo jeedin garay functionkeeda aan tijaabin marka waa kana marka 10.0 ayaa soo laabatay marka jeedin garaynana y-da checking aan ku sameynay waxaa waaye float waa markaas marka hadda waxaa sameynay variable x ayaa waxaa u bedelnay mar labaad float ayaa u bedelnay kadibna waxaa kusoo shubnay y ayaa kusoo shubnay marka halkaas marka waa manual markaas qiimihii hore ayaa waxaa u bedeli kartaa markaa rabtid inaad u bedeshid float waa inaa markaas soo gelaysaa halkaas function float isticmaashaa integerna waa isla midkii oo kale marka hadda halka jajab aa ka dhigno halka haddaa jajab ka dhigno aan dhahno 12.5 12.5 aa dhahnay halka marka maadaama float marka hore qiimaha x ahaa waxaa rabnaa marka inaan ka dhigno integer waxaa leenahay ent marka x oo ent loo bedel hadda aa fiirin hadane maarata 12 waxaa soo baxay qaleel ah markaas habka laakiin marka waxaa qalad dhacay sababtoo ah 0.5 dhan ayaa la bedelay meesha haddaan fiirin 0.5 dhan ayaa la inkiray marka waa hab adi aad dooratay manual waa hadhow qaladkii waxaa ka dhacdaa iskale python ma eedeysa markaas laakiin hab kale oo implicitka ahaa python ayaa shaqaas lahaa oo ilaalinaya in qiimo dhumo laakiin habka adaa si toos manual u isticmaalay u bedelay marka oo qiimahaas lumiye marka hadaa ugu tala gasho marka tiradaas markasta inay integer ahaato saas oo bedelay marka hadda waa kana marka integer u bedelay saasaa la isku bedelaa marka hadda functionka u bedelaysid kan kale ayaa inta geli doontaa saasaa u bedeli doontaa marka tusaalooyin kale ayay diri doonaa oo exercise marka kan isku tijaabiya marka hore habka labaad waxaa lahaa boolean conversion hadda waxaa bedelnay integer iyo float si la iskugu bedelo hadda waxaa arkaynaa marka boolean conversion marka rule habka la iskugu bedelo marka booleanka marka boolean waa noocan oo loo qoraa bool calaamad sala furaa functionkaas zero haddaa gelino waxaa waaye false ayaa soo baxayso haddaa kan gelino boolean one haddaa gelino waxaa waa true markasta zero markuu yahay waa false qiimaha oo soo celinaya booleankan hadda one yahayna waxaa waaye true
halkaas saas marka true and false waa halkaa marka maadaama booleanka uu yahay wax maran stringki oo eber aan lahaa qaybta waxa kuma qorna waa false markaas waa zero u dhigmaa haddaan stringkii aan wax ku qornan waxaa waaye true waa marka stringa hadduu ku jiro waa true so kale hadda meel oo qof oo email wax soo buuxinayo ayaad rabta inaa shuruud ka xirto markuu soo qoro hadduu emailkaas uu la macno yahay eber yahay waxaa leedahay false waaye lama ogola waxaas inaad tiraahid condition ah waa arki doona conditionska haddii wax ku qorana waa true waa la ogol yahay inaad dhahid waa conditiona inta badan loo isticmaalaa marka kan hadda rangareyno isagoo tusaalooyin badan idin soo diri doonaa exercise marka true ayaa soo bixi doona midka u dambeeyo ayaa markasta soo daabacna oo lasoo qaadi doonaa marka boolean conversionka isku sameynaysa saasaa sameynaysaa marka booleankii variablekii noociisa ayaa halkan geli doontaa marka tape functionska dada sheegin waa kana markaas oo tusaale ah tape conversionka x waxaa lana 10y y waxaa la 3.14 ayaa dhahnay set waxaa lana python dhowr variables intaas waxaa variablada database kala duwan kan integer ahaa kan float waaye kan sidoo kale string kan waxaa boolean intooda markaa mid kasta waa tijaabinay wax soo bixi doono database saa kula ogaan kan markaas adoo tira dhan yahay waa integer kan adoo tira jajab yahay waa float kan waxaa waaye string kan waxaa boolean markaas marka halkaas cashirka ku joojinayna dhageysta cashirkeena kale ayaa ka bilaabi doonaa mahadsantiin